dowladda Australia ayaa martigelisay shir looga hadlayay maalgashiga iyo dowlad wanaagga. Shirka ayaa ka dhacay magaala madaxda Queensland ee Brisbane. Queensland waxay ka mid tahay dowladaha la midoobay dowladda federaalka ee Australia. Shirka oo looga hadlayay maalgashiga iyo dowlad wanaagga wadamada ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa wadamo Afrikaan ah, waxayna kala ahaayeen wadanka South Africa, Kenya, Nigeria iyo Ethiopia. Shirka marka uu dhamaaday ama la soo gabagabeeyay ayaa Governor Nadiif Jaamac iyo waftigiisa waxay soo gaareen gobolka Victoria magaalada Melbourne ee Australia, waxaana ay la kulmeen jaaliyadda Kenyan Soomaaliga ah iyo jaaliyadda badan ee Soomaalida ee halkan ku dhaqan. Governorka oo warbixin dheer kadib la dardaarmayay ama la hadlayay jaaliyadda Soomaali Kenyaanka ayaa wuxuu kula dardaarmay ama ku dhiirigeliyay inay maalgashi ku samaystaan wadankoodii Kenya oo ay ka yimaadeen iyo gaar ahaan goboladoodii. markaan ka hadlayo Garissa waxaan ka hadlayaa dhammaan county-yaasha Northern Region-ka ama NFD sida uu sheegay Deputy Governor-ga anagoo dhanba xawaasheen waa isku dhowdahay devolution baan bilownay marka bal sidaan ku bilownay maxaa noo hirgelihaya xagee wax noo marahaya ayaan doonayay inaan wax un inaga taabto iyadoo hadafka aan ka leeyahayna uu yahay presentation-kaas caawo inaan run ahaantii aan inii muujiyo haddaad tihidiin dadka akhyaarta Soomaalida oo diaspora-ga degan in furas fara badan opportunities aad u fara badan inay soo bixi hayaan oo uu la yimaaday ama uu sabab u yahay devolution-ka. Soomaalinimada idinku jirto arrin aad iyo aad loogu farxo sababtay tahay inta badanaa dadku waxay u qaateen ummadda ama qadiyadda Soomaalinimada inay baaba'day oo dadku inay kala fogaadeen ay qabiil iyo jinni iyo waxaan macno lahayn u kala qaybsameen. laakiin maanta waxaa farxad leh sida ii muuqato Soomaalida degan Australia shalay waxaanu saaka ka nimid Brisbane tabtaan unbaa ma aragtay naloo soo dhaweeyay. Shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay ama lagu casumay marti sharaf badan oo jaaliyadda halkan ku dhaqana iyo kuwa ka socday maamul goboleeda Soomaalida. Waxaa ka mid ahaa dadkii marti sharafta lagu casumay halka Dr. Maxamed Cabbaas oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka caalamiga oo isaguna halka hadal ka jeediyay. marka bal waxaan ka sheekaynay Kenya iyo Puntland xiriirka ka dhaxeeya runtii saad la socotaan Puntland waxay ka mid tahay constitution-ka sida ku qoran Soomaaliya waa Puntland government dowladda government marka waxa la yiraahdaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka sida darteed waanu nacabnay in loogu yeero maamul goboleed bishii June sanadkii la soo dhaafay marti waxaanu ka helnay casuumaad dowladda Kenya aniga iyo wafti uu hogaaminayo madaxweyne Gaas waxaanu la kulannay madaxweyne Uhuru Kenyatta si fiican baa Nairobi loogu soo dhameeyay waxaan rabaa halkan inaan ka sheego connection-kii iyo arrangement-kii oo dhan intaanan madaxweynaha la kulmin siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee reer Kenya ayaa noo sameeyay aad baad ugu mahadsantihiin. waxaa kaloo halkaa ka hadlay qunsulka guud ee u fadhiya dowladda federaalka Soomaaliya wadankan Australia Yonis Yasin Xaashi. Kenya lama gudi karo abaalkeed Soomaali waa og tahay laakiin bulsho dhan oo soo qaxday oo diyaarad ku timid oo doon ku timid oo basas soo raaceen oo gawaari soo raaceen oo wadan iska soo galeen haddana la dejiyay jaamacada kaga baxay aakhirkiina ku yeeshay businessyada ugu waaweyn kaliya waxa laga helaa Kenya abaalkan iyaga iska iyo gudoomiyaha jaaliyadda Puntland Omar Faarax Dhoolawaa oo isaguna hadal dheer halkaa ka jeediyay. anagu Soomaali ahaan aad baan ugu faraxsanahay wadanka Kenya waxaanu aaminsanahay maanta Soomaalida badbaaday oo anaga halka fadhina aanu ka mid nahay inaanay sahlanaateen xaaladda aanu maanta ku noolnahay inaanu ku noolaano haddii Kenya sida ay noo caawinto ay noo caawineen
waxaa iyaduna xusid mudan ma dhacdeen Kenya inaysaan noo caawinto haddii ayan ku dhex jirin dad Soomaaliyeed oo dhinac walba naga caawimay si aanu nabad u nimaadno waddanka nabad ugu noolaano nabadna aan uga tagno. shirku markuu dhamaaday ayaan waxaan weydiiyey dadkii halka ka soo qayb galay ama ka mid ahaa wafdiga qaarkood bal sida ay shirka u arkeen. magacayga waxaa la yiraahdaa Cali Guuro Wasbucul waxaan aad ugu faraxsanahay gavanaha nagu soo booqday magaaladan Melbourne iyo waxyaabaha uu nooga sheekay aad buuna u dhacay si farxad leh uu dhacay aad baan ugu faraxsanahay waana dadkii halkaan kala kulmay waxa ka mid ah Faarax Sheekh Cabdiwahaab oo ahaa ninkii qabanqaabada rag wax ka waday kuna soo dhoweeyay governorka waddankan Australia gaar ahaan ka soo raacay magaalada Brisbane ee halkan la yimid shirka seebaad u aragtaa. runtii shirkii si fiican buu u dhacay waana ku faraxsanahay suu gavanaha loo soo dhaweeyey iyo sidoo uga hadlay oo ugu faafiyey community-ga waxyaalaha ay county-ga qabatay iyo waxyaalaha ay dimacsan inay qabtaan. shirkan halkan ka dhacay ee lagu soo dhaweynaya governorka Garissa Mr Nadiif ayaa wuxuu ahaa mid dad badan ay ka soo qayb galeen iyadoo uga xog waramay waxa ka jira dhulka nabadgelyada dhinaca maalgashiga. Cabdi Cilmi, Puntland TV, magaalada Melbourne.